cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn, bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah. dalka Faransiiska ayaa faro kulul ku haya diinta Islaamka toddobaadyadii ugu dambeeyay kadib markii nin macallin ah oo arday tusay sawir kartoon oo ku tilmaamay nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam. Waxaa macallinka dilay wiil dhalinyaro oo muslim ah ka hor intii asagana lagu dilin isla booskii uu ku dilay macallinka u dhashay dalkan Faransiiska. kadib dhacdadaasi madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu dalkiisa sii wadi doono aflagaadada nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. nacalad allah ku rido ninkii xabiibkeena wax ka sheega nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuul alle kaas oo ah midka ugu sharafta badan aadanaha oo dhan. xabiibkeena nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waa shakhsi ugu khayrka badan khalqiga alle oo idil. farshaxan xun iyo aflagaado liidata waxba laguma dhibi karo. dhammaan dunida islaamka ayaa aad uga xanaaqsan falkii uu ku kacay madaxweynaha dalka Faransiiska kaasoo sheegay inuu wadi doono aflagaadada rasuulkeena u geysanayo. qaar ka mid ah garoomada lagu dheelo kubadda cagta ayaa lagu muujiyay jaceylka xabiibkeena iyagoona qaar ka mid ah taageerayaasha ay ku luuqeeyeen nabi ammaanka ka hor intaysan ciyaar bilaaban garoon ay ciyaar ka dhaceysay. bal daawo muuqaalka taageerayaasha sida ugu luuqeeyeen nabi ammaanka. sidoo kale Sheekh Mustafa ayaa ka hadlay aflagaadadii loo geystay nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi isagoo furin u diray qof walba oo islaam ah. maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam, laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaadeed ma doodi karisee maxaad tidhaahdaa? haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid. waa marka labaad, haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid. hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorada xiirtay oo aad dhafoorada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yaadna surwaalka dabada dilaacinayso. laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad siladayaan dadku ku garanay. saxanka maaha. nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa qof in badan u naxariista dumarka, wuxuuna khudbadiisii ugu dambeeyay maalinta Carafo la dardaamay ragga inay u naxariistaan dumarka. nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qof xishood badan, wuxuu ahaa qof Allah subxaanahu wa ta'ala si toos ah ugu waxyoo jireen, wuxuuna nacbanaa inuu awoodiisa u isticmaalo qof kale. nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waa qofka ugu wanaagsanaa ee eeba abuura, waa rasuul ee malaayiin qof aamintay. sida uu diinteena ugu soo gaarsiiyo ayaa loo caayi jiray, godna u geli jiray, dhiig badan ayaana ugu daatay, waxbana lagama iibsan jirin, maka ayaa laga eriyay, adeeradiisna way beeniyeen. laakiin intaas oo ay tahayna wuxuu diinta islaamka soo gaarsiiyey waqtigan muslimiinta ay aad ugu dhaqmaan. wuxuu ku soo koray nolol aabbe iyo hooyo la'aan ah, wuxuu soo arkay dhibaato kastoo qof aadana ah oo arki lahaa. markii la weydiiyey in nafta laga qaado ama in aan laga qaadin ayuu nabigeena yiri iga qaada, waxaan doonayaa inaan tago xagga alle. maanta way caayeen, laakiin qof walba oo islaam ah ayay waajib ku tahay inuu difaaco rasuulkeena suuban calayhi salaatu wasalaam. haddaba daawadi haddii aad daawato muuqaalkan ku sali nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam. idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynayn oo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diray badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam.